بنشوف الشيء اللي وصل الصحراء والأرض كانت المفروض إنشاء كم جرام. gudoomiye waxbarashada gobolka Tagreer Ibrahim Digaale oo la shiriyay iminka office kula shiriyay macallimiinta dugsiga hoose dhexe Tagreer Ibrahim واسط مشروع علمتي إذا صار يعيش الصحراء وتوى أقول ليش أنا هو البيت بخلق الجوي وصيص أخرى على كده بلا أفواه كانوا بقولت له بقولت المركب بهم مشروع على دينه أكاد قربنا يمتحن شيء قريب وصح كانوا حسب الجوي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم دمانتي معلمينتي مولاي سكولكم كنتي في حضري هنا نتوصل أرزقكم كم سلا سوبرفايزر سكولي شغلنا امتحان كانوا امتحان غيرنا ما هاي امتحان العيد كله إنه أما أرضي كل عايش أما معلم اللي هو ذينيو بمعدل السوسوسو كلي وحويان وحلبك امتحانka qiimeynta faa'iidooyin fara badan bay noo leedahay mar waxa weeyaan waxaynu ogaanaynaa mustawaha rasmiga ah ee ardayga waxyaabihii uu bartay qasab ma hadda ardaygu inuu wixii loo dhigay boqolkiiba boqol uu wada xasuusto laakiin gudulooyinka soo baxaa si aynu u buuxino waxa weynu doonaynaa inaynu ogaano leefalka rasmiga ah ama waxyaabaha rasmiga ah ee ardayga hore u kabtargeeyey waxay faa'iido inooga tahay ardayda imtixaanaadka inay ku gelaysa oo aynu ogaanayno mustawahooda rasmiga ah oo kadib waqti baynu haysanaa fiicadda imika teeran baa inoo hadhay teeranka wax badan baynu sixi karnaa waa haddaynu qiimeyn rasmiga ka qaadno qodobka labaad waxaa jira imtixaan la yidhaahdo qiimeynta imtixaan la yidhaahdo fasalka saddexaad laga qaado labadii sano dibay la qaadayay حير عالمية بدون ما نقاله صارت إنجليز غير المها غير ما نقاله صارت إنجليز ولا نقاله فصل صباحات كان كآخر سكية قرآن صارت إنجليز كحيوان وعسل لا نقاله مثلا كانت دول نقطة يا هذي سكول فوق سكول سيش راندوم ليه أي الله دور فاوح لقيا بعد السنة دي رمضان مصور سنة بدل سكول وسوا بكرة مثلا كانت دول نقطة هاي معلق السنة qiimayn hoose ayuu noqonaysaa marka dhinaca laga yimaado waxaa kaloo iga faa'iido ah mashruuca muddadii uu socday wuxuu ka macaashay iyo meelaha gaar